Madaxweynihii hore ee dalka Koon Furka Africa Zuma ayaa maanta maxkamad la soo taagay isagoo dagaalamaya eedeymo musuqmaasuq oo ka dhan ah la baabi'iyo eedeymahaasi oo la xiriira heshiis hub ah oo dhacay sanadihii 90-maadkii ayaa lagala laabtay 10 sano ka hor wax yar uun ka hor inta uusan Zuma noqon madaxweyne 16 kamida dacwadaha oo dib loo soo celiyay sanadkii 2016 ayuu Zuma sheegay inay dhiirigeliyeen arrimo siyaasadeed waxa dacwad kamid ah waxa istabamarin iyo dambiyo abaabulan suuq been iyo xalaalayn lacag ah waxa ku jira lacag qarsoon oo Zuma dib looga siiyay heshiis hub oo dhexmaray Yurub iyo Koon Furka Africa wakiil ka tirsan shirkadda hubka ee Faransiiska ee Talasa ayaa sidoo kale wajahaysa eedeymo lamid ah kuwa Zuma ayaa markii heshiiskan uu dhacayay ahaa madaxweyne ku xigeen Zuma iyo shirkadda Talasa ayaa labaduba ay beeniyeen wax qalad ah inay sameeyeen waxay doonayaan in la joojiyo dacwadahan hadda ka socda maxkamadaha kala duwan ee wadankaasi Koon Furka Africa